siwanagi yaqulu waro wadakenu dhigi kawanado siwanagi yaqulu waro wadakenu dhigi kawanado waftidan heer qarane inooga timi Hargeysa labada beelood ee kala duwan halkan fadhiya Basanbuur iyo Bohogas laba iyo baha wadaagta Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagu kelmad gaaban baan leenahay waxaan u mahadcelinaynaa beelaha halkan fadhiya oo maanta dhacdadii dilka ahayd ee 2020 bishii labaad dhacday kana dhacday degmada Ceeri Gaabo ka heshiiyay dilkaas oo muddo dheer runtii soo jiitamay aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa ugu horreyn waxaan u mahadcelinaynaa beelweynta Basanbuur oo ka xaajo qaatay arrinta kana samray marxuumka wixii alla ka qoray iyo wixii umadi ku heshiin jirtayna ka qaatay mar labaadka waxaan iyagana u mahadcelinaynaa beesha baha wadaag iyo Bohogas laba oo runtii iyaguna arrinta u soo golo fadhiistay inay ka xaajo qaataan oo arrinta waxay walaalahood ku dhaahin lahaayeen golaha la yimi aad baan runtii uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa guddida guud ee wasiiradu hogaaminayaan iyo guddida nabadda iyo waayeelka kale beelaha kaleba ah ee arrinta iyaguna qayb ka noqday waxay ka mid tahay nabadgelyadii degmada Ceeri Gaabo furiyaasheedii koowaad in maanta la xiray ilaahay waa mahad leh ugu horreyn marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa waftidan ka kooban wasiirada iyo xubnaha guddida nabadda ee heer qaran iyo xildhibaanada baarlamaankaba ka tirsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawshii daadihinteeda labada beelood Basanbuur iyo bahwadaag Bohogas laba sidoo kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa walaalkay marxuum Xuseen Maxamed ilaahay u naxariisto ilaahay baan ugu baryaynaa inuu cawlsan ugu bedelo agoontii iyo qoyskii iyo ehelkii uu ka baxay guud ahaan qaranka Soomaaliland ilaahay baan uga baryaynaa inuu jannatu firdawsa ka waraabiyo marxuumka muddo badan baa magtiisa ee arrintiisu taagnayd ilaahay ma haddii maanta khayr bay ku dhamaatay madax dhaqameedka iyo waayeelkana hor fadhiyana mahad gaar bay leeyihiin bulshada Soomaaliland mahad gaar bay leedahay wax way dhacaan wax wayna dhici doonaan laakiin in la heshiiyo oo laga heshiiyo islaax lagu dhameystaa wax walba ka aftala ka gobol ahaan farxad gaar bay tahay kiiskani markii aan gobolka imi 2 sano dhacsanaa 2 sanadood buu dhacsanaa afarna hadeer in ku dhowna ana joogay 6 sano wax amni darro ah oo ka yimaaday may jirin intaana waa lagu samreeyay xaaja qaadasho iyo wanaag bayna ku dhamaatay
ilaahay baynu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan leenahay insha allah bismillaahi kariim guud ahaan gobolkii Sanaag oo gacmaha is haysta oo isku faraxsan in ilaahayna waafajiyo insha allah bismillaahi kariim halkan tiimkan iga dambeeya ee ilaa halka dheeraranay waa tiim aan guddi ahaan iyo dawlad ahaan ka koobnaa guddi halkan naga biirtay iyo guddidii dawladda xagga ka timi iyagu hadeer maanta mahadnaq male mahadnaqa waxa leh labadiina beelood iska soo horjeeda aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa labadiinaba sida gobonnimada leh ee hawshii aynu u soconnay oo ka mid ahayd waxyaalaha miisaanka weyn leh ee maanta ceergaabo bulshadeedii kala fogeeyey sida aad nooga aqbasheen sida aad u fuliseen sida qolo waliba wixii aanu keenay ay u aqbashay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay wanaagii baa aqbasheen iyo waxaanu wadnay waxaanaynu wadnaa marxuum dhintay way ka fogtay aragti ka dheer baynu wadnaa oo maxay ah in bulshadii ceergaabee kala maqnayd ee walaalo ahaa ee isku mid ahaa ee wada dhashay ehelka ahaa inay gooshii nabadda ku soo wada noqdaan oo ceergaab oo nabadda ku wada noolaadaan aragtida aynu ku soconnaa waa taa marxuumkan geeriyooday allah u naxariistee waa dariiqaynu maraynay wax ku fududaynayna laakiin aragtida aynu inagu u soconnaa waa taas aan idiin tilmaamo way ka culus tahay tan waa tii nolosha bini'aadamka oo dhan weeye sidaad noola qaadateen aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan jeclahay waxa dambena si wanaagsan awalba de waxa waad kala qaadan jirteen dad tolahoo wada xidhiidha ahaydeen dad wada dhashay ayay u socon doontaa haddii ilaahay idmo waxay la tahay hadalkii waan badiyey waxaa inoo ballana wada jir walaaltinimo iyo inta inaga maqan oo aynu gacmo isku mida iyo qalbi isku mida iyo niyad isku wada mida aynu ku wada baadi doono waxaan kaloo ku dardaarmaya war waxani waa adduun waana mag horena intaan halkaa caawa ku xaraysan hoolka midaan waxaa goobjoog ka soo ahayni ma jirto haddii markaa waxbaba soo bixi waayaan ama dhibaatooyin kale ay iska timaado ilaahay baa ogi ha la isu samro ha la isu dulqaato hadday magi meel ka soo bixi wado wax yimaadaan dad wada dhasho walaalaatiina duruufta jirta nin walba maalin bay qabsanaysaa ha la isla eego ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala marka hore ilaahay baynu mahadnaqaynaa inoo fududeeyey hawshan innagoo islaax wadnana halkan isugu keenay marka xigta waxaan u mahadnaqaynaa labadiinnan garabba waa u mahadnaqaynaa sidaad u samirteenna waa idinka mahadnaqaynaa qoladanna siday ugu samirtay maalka iyo duruuftii ninku marka dee gashi lagu leeyahay ee magaaladiina ay wada degan tihiin haddii idinku agoosateen inaydaan cid far saarin dee kii marxuumkaa dilayba cid kale muu tashan hadalku intay arrin taagan yahayna dee qofkii waxgaradkoo dhami dee wadnihiisu ma fadhiisanayo marka idinkuna inaad tala gaadheen oo idaan tidhaahdeen war marxuumkaasi iyo inaan tala xumaa ku dhacday iyo inay tala xuma innagana inaga dhicin aad baa ugu mahadsantihiin muddadaa 6 sannadooda iminkana inaad ka samirteen ood ka diya qaadateenna waa ku mahadsantihiin bahwadaag bahowgaaslamana aad bay u mahadsantahay iyaguna inay dee garyigilla ay noqdeen arrintiina ay u fadhiisteen culays kasta oo ay adduunku maanta waa iska culaysee la saarayna ay qaateen hadduu mag yahay hadduu ganax yahayba iyaguna aad iyo aad bay mahadsan yihiin ilaahayna subxana wa tacaala mar labaad iyo mar saddexaad ba waynu mahadnaqaynaa tolkan kale iyo xukuumadda ee iyaguna ina dhex joogeyn intaa maarata hawsha aan wadnayna iyaguna aad bay u mahadsan yihiin odayaasha da'da ah ee 24 saacadood aan shalay fadhiisinayna idinkuna waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin waqti badan bay ahayd maxaa la odhan jiray waar meesha kululaayo geeleenni baa marayso caga ma ahayn ya arrintaynu u fadhinay ayaa lahayd inaynu waqti badan fadhino arrintaa lahayd marka sabirkaana aad iyo aad baanu idinkaga mahadnaqaynaa aad baa ugu mahadsantihiin tol baa tihiin oo dee xigaal baa tihiin
ilaahay subxaana watacaala ceeri gaabo idinku abuura maanta ceeri gaabo mid ka guuraya idinkuma jiro basanbuurna halkaasay oolaysaa bah wadaag bawga islaamna halkaasay oolaysaa ilaa inta suurka la afuufayo eryadunba joogteen waana joogaysaan insha allah dhibaatooyinkuna waa iska dhacayaan dee noloshu haddaana idinka idinku kala dhicin xigaalkiina kale intaa ka dhacaya waxa geed joog baa u noqonaysaan oo arrintaa geed joog u noqonaysaan haddayna idinka idinku imaan sida ay yihiin qofku markuu arrimahan oo kala gelayana waxa uu ku wanaagsan yahay markaad soo socoto go-aankaad soo qaadanaysaa inuu mid islaaxa ahaado niyadaad la soo socoto hadday islaax noqoto ilahayna ajar buu kaaga qorayay arrintuna way fududaanaysa laakiin haddaad arrintaad la soo socotaa ay qariban tahay ajarna heli maysid arrintuna way xumaanaysa marka mar walbana niyadana waa la wanaagsadaa waxaan lagu talagaa arrimahana dee odayaal baa u tihiin mar labaad iyo mar saddexaadna waan idinka mahadnaqaynaa aad baa u mahadsantihiin